وهجاج ولي واحد داوني سام برامج كارجلكا قيبي دحية برامج كأيان كوجد جرنا إنه قيبي سي دم بمر كانوسي طلاب دونا dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka damqaday qoyska Ayaanle mahad xaashi oo kol hore warbixintiisa RTN ay baayisay ayaa deeq lacageed gaarsiiyay qoyska Ayaanle si noloshooda ay ugu kabtaan wariyeena Haajir Cabduqaadir Nuur ayaa booqday guriga Ayaanle wuxuuna inooga diyaariyay warbixintan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku kala nool gudaha dalka iyo dibadda ayaa lacag $200 gaarsiiyay qoyska Ayaanle mahad xaashi kuwaasoo markoodii hore qorshoodu ahaa in wiilka yar ay u iibiyaan gaari uu ku socdo maadaama laga soo horeeyay iibinta gaarigaasi waxay go'aansadeen dhalinyaradaasi in cidda ay ku wareejiyaan lacagta Cumar Cadow Juxa iyo Cilmi Samatar oo dhalinyarada lacagahaasi soo sadaqaystay wakiilka ahaa ayaa ku wareejiyay lacagta Ayaanle iyagoo sheegay in markii ay daawadeen warbixintiisa ay la damqadeen kadibna ay go'aansadeen inay caawiyaan oo gaari ay u iibiyaan Ayaanle lacagtan waxa soo sadaqaystay Cilmi Samatar oo hadda ila fadhiya iyo aniga oo Cumar Cadow Juxa ah iyo Mahad oo IBS madax ka ah bangiga IBS waa taqaana Soomaa iyo Dr. Sabir oo like and share waa taqaana Soomaa like and share kafeegi iyo jalaatada meesha lagu gada sidoo kale waxa intaas wehelisa Maxamed Saciid iyo Cabdi Samad Cabdi Nuur Cabdullaahi Shiine Gurey Cabdi Qani Gaarane oo Mareykanka jooga Abukar oo asigana Abukar Fiidow oo jooga Mareykan sidoo kale Najiib Sheekh Nuur oo Muqdisho jooga Maxamed Yaasiin oo Muqdisho jooga Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo Dubai jooga oo ah ninkii gaariga marka hore ku soo gadi rabay oo fiidiyowga waliba arkay in gaari lagu soo gaday sidoo kale Dr. Cabdirasaaq oo Masar jooga Cabdirasaaq Maxamed oo asigana Muqdisho jooga marka waa 15 qofood oo runtii oo niyad fiican lacagtan u soo dhiibay way yar tahay laakiin waxaan dareemayaa niyadda oo maaragtay ay daba joogta ayaa aad u weyn niyaddooda ayaa aad u weyn marka ayaan la soo dhawow waa kaas lacagtii oo la soo dhiibay maanta waxaan la joognaa walaalkeen Ayaanle anaga iyo Cumar Cadow Juxa oo walaalihii qeyrdoonka ah sadaqadii ay noo soo dhiibteen oo $600 ahayd aan ku wareejinay $600 lacag badan ma ahan laakiin sadaqa yaraan ma leh niyad wanaag ay muujinaysaa in walaalkeen ay mar walba dad garab taagan oo jecel ay jiraan guriga aan maanta joogna Ayaanle asigaas kale alxamdulillah maanta asiga qoyskiisa walaalihii kale oo sadaqadaas baxsaday oo waxa soo juhdiga bixiyay ayagana ajri xasanad Allah ka siiyo dadku isku wada baahan yihiin hal qofna waxba ma qaban karo marka qof walba wax markuu qabto waxaan quruxda badan ayaa la sameeynaa maanta guriga uu leeyahay oo nimaado marka waxaan ku dardaarmaa Ayaanle iyo ilmaha la dhashay Axmed Cabdalle iyo Ati oo ugu yar in ay waxbarashada dhankaas ay maamuleylo ku dadaasho oo maanta guriga ay leeyihiin hadii deegaano walaalo Soomaaliyeed oo dhiseen lagana yaabo ganacsi iska yar small business waxaas inay bilowdo waxaan aad u jeclaan lahayn inay bal ilmaha waxbarashada dhankaas waxbarashada inay xoog saaraan oo bariisay u noqdaan kuwa ayagana is anfaco oo sida ayaga maanta loo caawiyo dadka kale u sii caawiyo insha Allah Ayaanle mahad xaashi ayaa ugu madceliyay deeqda lacageed ee la soo gaarsiiyay lacagtii $600 wayna ii keenan dadka soo dhiibay aad iyo aad u mahadsan meesha soo qaadan badar qayl qawalaha uu bedel ka waxa baato xarajina in doctorna noqdo doctor nefa ha ma sha Allah Haajir Cabduqaadir RTN TV Muqdisho